عشقت الدمدودية روحي كبكوتشع تبتلو مقبولي واتان قيبتي لباد شيكدي حيسها بدنيد ridwaan markii ay qabsatay dhacdadii murugada lahayd isla markii ma uusan wicin saaxiibtii Anisa waxa uu ka xishooday inuu dhaho waa lay dhacay waxa uu ka baqayay inay Anisa u aragto inuu been u sheegayo ama uu doonayo inuu lacag been abuur ka qaato muddadii ridwaan xishoodka uu la aamusnaa waxa akirantay xaaladii gabadhii Anisa markii ay waayday ridwaan waxa la soo darastay walwal iyo walbahaar habeen kasta waxay ka fakartaa xaaladda ridwaan iyo qaabka uu ku nool yahay waxa la gaaray xilligii imtixaanada dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho Anisa waxay maraysay galaaska ugu dambeeya haddii ay imtixaanka ku baasto waxay ka qalin jibinaysaa dugsiga sare waalidka Anisa waxa uu diyaariyay in waxbarasho loogu diro dalka Pakistan nasiib darro Anisa kuma aysan baasin imtixaanadii oo waa ay ku dhacday sanadkii ugu dambeeyay Anisa qalbigeeda waxa mashquuliyay jacayl macallimiintii iskuulka markay saxayeen maadooyinka Anisa warqadaheeda waxa ku qornaa sida tan Ridwaan I love you maxaa kugu dhacay miyaad nacday haddii aad nooshahay telefoonka guriga iga soo wac waa ku dhima rabaa macaane iga soo gaar adiga ayaan ku ildaranahay noolaha dhamaantood nololka wadalme nasibku yasiyo waxa tahay naftaydii noolaha dhamaantood nololka wadalme nasibku yasiyo waxa tahay naftaydii ناحي عاشقا أنور الوداع إلى ناحي عاشقا macallimiintii markay arkeen natiijada ay keentay imtixaanka waxay la noqotay filan waa maadaama Anisa ay ahayd gabadha ugu firfircoon dhanka waxbarashada la yaab ayay noqotay inay Anisa ka baasi wayso imtixaankii dugsiga sare macallimiintii iskuulka ayaa ka shiray dhacdadan waxaana loo gudbiyay maamulka iskuulka waalidka Anisa markii ay maqleen in gabadhooda ay ku baasi waysay imtixaankii hooyada Anisa waxa ay qabsatay shoog iyo naxdin waayo kama ay filaynin in gabadheeda ay ku dhici doonto imtixaanka dugsiga sare halka Anisa aabaheed uu kaga mashquulsanaa fiisa diyaarinta Anisa ay ku bixi lahayd Anisa waxay diiday
inay dhigato iskuulka maadaama ay ka baqayso inay ku camirtaan ardada kale oo la dhaho damiinad ayaa tahay. warqadii imtixaanka looga jawaabayay waxaad ku qortay erya jacayl. waalidka Anisa waxa uu bedelay telefoonka guriga ayagoo ka cabsi qaba inuu soo wici doono waardiyihii guriga. maalmihii la bedelay rabay telefoonka ayaa waxaa soo hadlay Ridwaan. waxa uu soo wacay telefoonka guriga. Ridwaan ayaa codsaday in telefoonka lagu dhiibo Aniso si uu ula hadlo. Ridwaan ayaa la weydiiyey qofka uu yahay. waxa uu sheegay inuu yahay macallin ka mid ah macallimiinteeda dugsiga sare uuna doonayo inuu gabadha dhiirageliyo oo ay noqoto mid waxbarashada ku firfircoon. waalidka Anisa way aamineen warka Ridwaan, waxayna waceen Anisa ayagoo oranaya waxaa ku soo wacay mid ka mid ah macallimiinta dugsiga sare. Anisa ciil ay u qabto macallimiinta ayay tiri, imtixaankii ayay igu rideen, miyay haddana isoo wacayaan? ma la hadlayo mana doonayo ee telefoonka ku damiya. Anisa ma oga fursadda qaaliga ah, waa fursad dahabi ah. haddii ogaan lahayd ruuxa soo wacaya maalinkaa nolosheeda way iftiimi lahayd, qalbigeedana waa u xasili lahaa, murugada haysana waa ay ka yara degi lahayd, wayna kala warqaadi lahaayeen gacaliyaheeda qaaliga ah. waalidka Anisa ayaa ku yiri Ridwaan ayaga u malaynaya macallinkii iskuulka, macallin gabadha way yara hurdaysaa, habeen dambe xiliyadan oo kala soo wac, telefoonka waan iska bedeli doonaa insha Allah, nambar cusub ayaan qaadanay ee qoro macallin. kan aad hadda nagala hadlaysid waxaa nagu dhibay dhalinyaro aan wanaagsanayn. macallin waad mahadsan tahay sida aad gabadha u dhiirigelisay. assalaamu calaykum ayaa lagu salaamiyey macallinkii. Ridwaan aad buu u farxay sida nasiibka u leeyahay iyo inuu ka war helo in telefoonka guriga la bedeli rabo. wuxuu go'aansaday inuu habeenka xiga uu soo waco Anisa, laakiin nasiib xumo ayaa dhacday. Ridwaan waxa uu soo wacay xilligii ay ballamiyeen waalidka, waayo haddii uu ka soo hormari lahaa ballanta waalidka, Anisa waxay u fahmi lahayd inay meesha far ku godan tahay amase aysan ahayn waxa soo wacaya macallinkii. markii uu soo wacay waxaa qabtay Anisa hooyadeed. Ridwaan si xushmad iyo sharafi ay ku jirto ayuu u salaamay waalidka Anisa, kadib waxa uu ka codsaday inuu la hadlo gabadha. waxaa loogu dhiibay Anisa, farxad darteed ayay la aamus weyday, ayada oo qaylinaysa ayay hal mar la soo booday. aboowe macaane gacaliya ma noolayd, intay joogtaan waan kuu xiisay. intaa oray marka isku daba xijisay si aan kala har lahayn. waalidka Anisa waxa u dareemay qofka soo waca gabadhooda inuu yahay wiilkii lagala cararayay. Anisa hooyadeed waxa ay kala jartay fiilada telefoonka. Anisa waxaa ka tambadiyay jacaylka ay u qabtay Ridwaan. waxay fahmi wayday qorshaha sirta ah oo uu watay Ridwaan, waxayna ka dhigtay qorshihii guuldarro. haddii ay si degan ula hadli lahayd ama markii ogaatay inuu asaga yahay ay ula jiri lahayd inuu yahay mid ka mid ah macallimiintooda, xiriirkooda wax uunbaa ka soo bixi lahaa. Anisa habeenkii waa la jirdilay, ciqaab adag ayay la kulantay dhanka waalidka ah. dil kasta oo Anisa loo geysta ma ahayn mid wax u dhiba ayada, laakiin waxa uu noqon jiray mid ay ku sii jeclaato Ridwaan, weliba si labalaab ah. waxayna la kulantay ciriiri xagga nolosha ah. waxaa la xadiday waqtiyada ay wax cunto, maadaama waalidka u arko in dharagta ay kibir ka keentay gabadhooda. habeenkii cashada ay cunto waa loo diiday. sidoo kale waxaa la xadiday xilliyada ay qolka jiifato, ayadoona inta badan qolka kor looga soo xiri jiray. guriga Anisa ay degan yihiin wuxuu ahaa guri qurux badan, una dhisan sida guryaha boqorada oo kale, una camiran sida guryaha carabta oo kale. waa guri daaqadihiisa ay ka samaysan yihiin miraayado. habeenkii saqdhexe markii la gaaray Anisa waxay jebisay miraayada, waxayna ka booday daaqada.
balse nasiib darro anise waxaa galay jajabkii dhalooyinka. anise waxaa ka go'an silacaan cusub ee nolosheeda ku soo kordhay inuu mar an ay ka baxdo, laakiin hal dhib ayaa haysata anise oo ah inaysan garanaynin halkay ugu hagaagtay inankii Ridwaan ahaa. intii aysan ka boodin daaqadda anise waxay u reebtay waalidkeeda fariin u qornay sida tan: hooyo iyo aabbo, waxaan ka baxsanayaa siriciinna iyo xasinimadiinna. waxaad tihiin cadowga noloshayda. waxaan raadsanayaa nololtiinna ka wacan. waxaan ahay qof qaangaar ah, kala garanaya waxa u fiican iyo waxa u daran. waxaan raadsanayaa gacalyahayga Ridwaan. haddii aan waayo Ridwaan, noloshayda laba mid ayay noqonaysaa: in aan isdilo iyo in aan guursado niman kale. waxaan laga yaabin in aan mar uun dib aan ugu soo noqdo gurigiinna. ma doonayo in aan noloshayda mar dambe dib aan idin arko. waxaan ka xigaa dhimasho. dhegaystayaal, intaasi haynoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii xiisaha badnayd. कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार फिर न होगा ये दोबारा।